Salaama kusoo dhawaada qaybtii afraad ee filimkeena. Waxaanu noo joogay atiirishada Otora u soo wadaysa isbitaalka si uu u ogaato caafimaadkiisa. Tiktoorkan wuxuu ku dhahayaa wax fiican ayaa samaysay, wax fiican ayaa keentay, waa in lagu sameeyaa qaliin. Wuxuu qabaa qabsin ama dheebshiidka ayuu ka xanuunsan yahay. Otoreen waxaa loo soo wadayaa qolka qaliinka. Asagana atiirishada wuxuu ku dhahayaa kambas ku laabsan ka bacdi indhaniyada waxay dhaysaa banaanka ay ku sugay walba casho cuna ayuu dhahayaa. Indhan waxay fariisanaysaa meesha weytinka oo lagu suga qofka. Indhan waxay bilaabaysaa inay cudurkii waxyaabihiisa akhriso. Waxaan soo wacay hooyadeed waxayna u sheegaysaa Duwaan inuu xanuunsan yahay. Iyadana waxay dhaysaa maskiin qof ma haysto. Sanjiina waxay dhaysaa hooy maxaa ula jeedaa qof ma haysto magaaladiis ma. Iyadana waxay dhaysaa haa waxaan galaynaa xasuus. Waxaan arkaynaa Otoreen isagoo u soo celinaya atiirishada hooyadeed waalidiinteed lacag uu ka qaatay. Indhan waxay dhahayaan lacagta iska qaad u diiday nala casheeyo laamay dhib ma lahan ayuu dhahay. Wuuna ugu mahadcelinaya wuuna ka tagayaa. Waxayna dhahayaan wiilkan ka taxadar waa wiil dhibaatooyin badan ayuu maray. Isagana haye ayuu dhahaa. Waxaan ka soo laabanaynaa xasuusta. Waxaan arkaynaa qaliinka in la soo bogay. Waxaan lagu dhahaa wax adag macun kar wax dareero oo kaliya ayuu cabayaa. Xaaladiis kale anaga kula soo socodsiinayno. Duwaan wuxuu dhahayaa waa inaa kambaska u laabataa. Waan ii soo sheegtaa markaa kambaska aad tagtay. Waxay dhaysaa qof weyn ayaa noqday markaan. Isna wuxuu ka fikirayaa shilkii ka dhex dhacay iyadii asaga. Waxaana soo wacay Saanyaan wuxuuna caafimaadkiisa ayuu weydiinay. Wuxuuna u rajaynayaa caafimaad tamaamay. Waxaan soo laabanaysa atiirishada wuxuu dhahayaa maxaa ku soo celiyay. Waxay dhaysaa ani hadday dhibaatada igu dhici lahayd waa ila joogi lahayd. Casha ayaa soo gatay ayaa joogaa caawa seexanaya ay dhaysaa. Tiktoorka wuxuu dhahayaa ma qabaysan kartid. Waxayna bilaabaysaa inay wajiga ka tirtirto silma filaan indhuhu kala furaa bay soo cararaysaa. Suuliga maas muxuu iigu sheegay markuu indhaha kala furaayay. Ka bacdi habeen ayaa la gaaray. Saaxiibadeed ay u sheegaysaa inaysan soo hooyanaynin. Waxayna u sheegaysaa inay college-ka aadayso. Isna wuxuu dhahayaa guriga aad ii soo qaad kombiyuutarkiisa. Iyadana waxay dhaysaa maya waa xanuunsan tahay college-ka ay imaanaysaa. Waxayna bilaabaysaa cashadeed meeqaad asxaabteen waxay weydiinayaan wiilka ee wax isku yihiin soo caafimaadkiisa. Waxayna u sheegaysaa inay fiican tahay laakiin bacdul iskuul inay aadi doonto. Waxay is arkayaan Janmin wayna ka raalgelinaysaa maadaama xalay meesha isku raaci rabeen ay ka baaqatay. Ninka kale Otora ayaa wuxuu soo wacay gabdha ay shaqo wadaagayeen. Wuxuuna u sheegay in kombiyuutarkiisa uu keenay. Waxay dhahaan soo caafimaad ka bacdi ayaa shaqaynaysaa. Waxaan soo wacay gabadhii Otora jecleed. Dhanka kale waxaan arkaynaa atiirishada Sanji oo imaatay guriga Otora. Waxayna u soo qaadaysaa waxyaabo uu u baahnaa. Waxay arkaysaa sawirkeeda maalinkii xafladiisa ee qalin jebinta. Waxayna arkaysaa dhanka kale hooyadiisa. Waxayna salaamaysaa. Waxayna soo aadaysaa dhanka iyo qolkiisa. Waxayna u soo qaadaysaa dhar iyo kombiyuutarkiisa. Isagoo iyada guriga ka soo baxaysa waxaan arkaynaa gabadhii u imaatay Otora laakiinse ma uusan joogin. Albaabka ayuu ka garaacaysaa. Waxaan arkaynaa dhanka kale isbitaalka atiirishada inay imaatay. Qolkan wuxuu kusoo biiray bukaan cusub. Wuxuuna ku dhahayaa atiirishada waa inaad dalbataa cunto. Otora ka bacdi waxay dhaysaa anaa dalbanayo. Duqana wuxuu dhahayaa gabadhaada xaaskaaga ku qaylinin. Iyadana waxay dhaysaa kan aabba ayuu ku fiican yahay ee ninkii ma wuu iga weyn yahay. Ka bacdi wuxuu dhahaa dhib ma laha cunug ayaa u dhalaysaa. Ka bacdi aabba ayuu naqanayaa. Habeenkii waxaan arkaynaa wuxuu ku dhafrayaa project uu diyaarinaya. Atiirishada waxay dhaysaa inaa kuu keenaba ma ahaynin saan ayaa tahay dhafarka waa inaa iska joojisaa. Duqana wuxuu dhahaa waa inaa iska hurstaa markaa meeshaan ka tagtay. Iyadana waxay dhaysaa waa iska hursanaynaa. Waxayna ka soo baxayaan isbitaalkii isbuuc ka bacdi. Waxaan arkaynaa iyaga u socda guriga. Otoreen wuxuu dareemayaa inay ka xanaaqsan tahay. Wuxuuna la hadlayaa laakiin uma jawaabayso. Guriga ayay imaanayaan. Waxayna bilaabaysaa inay dhahdo dadii labada san jaceylka aqarsanayay waxay la muuqataa inuusan igala mid ahaynin. Waxayna bilaabaysaa inay waxyaabahaas ka fikirto. Indhan waxay u sheegaysaa inuu dhafarta iska yareeyo habeenkii inuu waqti fiican seexdo cuntadiisana uu ilaaliyo. Waxayna dhahaysaa homework ayaa u baahan inaad ka shaqayso. Asxaabta ayaa aadaya. Waxayna soo baxaysaa guriga. Waxayna bilaabaysaa inay dhahdo had ka bacdi waa walaalkee. Habeenkii markii la gaaray wuxuu arkay warqadii meesha ugu dhejisay uuna fiirinayo. Subaxii dambe wuxuu soo aadayay shaqadiisa. Wuxuuna xal weydiisanayaa asxaabtiisa si ay atiirishada ka xanaaqsan ay xal ugu keenaan. Ka bacdi waxay dhaysaa waa inay habeen casho u wadaa. Wuxuuna dhahayaa haye waxaana ku laabanayaa shaqadooda. Waxaana soo baxaysa gabadhii jecleed wuuna ka qabanaya. Wuxuuna dhahaa waa inaa faraha iga qaaday. Iyadana waxay bilaabaysaa casho asla soo cunna. Ka bacdi mobaylka ayuu ku daminayaa.
ugu soo celinaysa uuna iska indhatiraa. Habeenkii waxaa la gaarayaa habeenkii isku raaci lahayn shaneemada Tirishada iyo Janmin. Wuxuuna dhahayaa waa inaa wax yar hawa soo qabtaa. Waxayna arkaysaa meel boombalo ku jiro. Waxayna isku dayaysaa inay soo baxsato. Dhankooda ayay soo aadaysaa. Waxayna isku dayaysaa mid uu mar Athora siiyo inay soo baxsato, laakiin way soo baxsanaysaa. Janmin wuu arkay iyadoo ku dadaalaysa. Mid ayuu soo bixinaa, laakiin wuxuu arkay iyadoo soo baxsatay. Dhan kale wuxuu keenayaa kambaskeeda. Waxayna soo raacayaan asxaabteeda. Waxayna isku balansanayaan inay habeenkii sanadka cusub ee banaanka aadaan. Waxaana la gaaray habeenkii sanadka cusub. Tirishada waxay dhaysaa meel buuq ah. Waxayna bilaabaan inay Tirishada maxsalaameeyaan. Ayna baxaan banaanka ay aadaan asxaabta kale iyo iyaga. Janmin wuxuu weydiinayaa Sanji ma imaanayso miya, waxay dhahayaan maya. Wuxuuna bilaabaa inuu niyadjabo. Waxaana halkaas ku ogaanay inuu jecel yahay Sanji. Dhan kale waxaa soo wacay Tirishada Sanji Athora. Wuxuuna dhahayaa banaanka ayaa casho isku raacayna. Wuxuuna usoo wadayaa casho si uu ugu mahadceliyo. Waxaan arkay in maqaaxida ay imaatay gabadhii Athora jecleed. Waxay arkaysaa waxayna ku shubaysaa Athora biyo. Tirishadana waxay u nakacaysaa, iyadana waxay ku shubaysaa sidoo kale biyo. Waxayna dhahaysaa wax aad ku samayn kartid ma lahan. Waana maqaaxida banaanka ayaa looga saarayaa. Waxayna bilaabayaan inay iyagana ay soo baxaan. Waxayna bilaabaysaa in biyihii ay ku daadayso ay ka tirtirto. Waxayna dhahaysaa hore ayaa u arkay gabartaaneti. Waxayna bilaabayaan in sanadka cusub ay isku hambalyeeyaan. Iyadana waxay ka duceysanaysaa in uu gabar helo. Gabadhaasna ay iyada noqoto. Isna wuxuu ugu duceynayaa inay farxad ku noolaato. Asxaabta kale kulligood waxay bilaabaan inay qof walba wuxuu jecel yahay uu niyeysto. Waxaan arkaynaa gabadhan inay Janmin ku daqaran tahay. Dhanka kale waxaa arkaynaa Athora oo guriga soo socda. Waxaa ka hor imaanaysa gabadhii. Waxayna dhahaysaa haweenka raaligelinaysaa waxyaabihii ay samaysay. Waxayna dhahaysaa hooyadii ballantaa ka qaaday in oofiyo inay ilaalin doonto ayaa ballan ka qaaday. Isagana wuxuu dhahaa wuu iska tuuraa. Wuxuuna kusoo xaroonaya gurigiisa banaanka iyo cabaar ku oynaysaa. Wuxuuna bilaabaya inuu waxyaabihii dhacay ka fikiro. Wuxuuna galayaa xasuus. Waxaan halkaas ka ogaanaynaa in gabadhan aabaheed uu dilay Athora aabihiis. Waxayna bilaabayaan ardayda kalaaska dhigtay inay dhahaan Athora aabihiis waa dilaa. Wuxuuna dhahayaa waa ka caawinaa maalmaha iskuulka maqneed. Waxaa arkaynaa hooyadiis inuu ka raaligelinayo midaas. Wuxuuna mahadcelinayaa Tirishada. Waxaa arkaynaa inay soo qorayso sanad cusub. Wuxuuna dhahayaa waan ugu hambalyeynaa. Sidoo kale waxaana soo wacay Athora saaxiibkiis. Wuxuuna dhahayaa aniga waa aroos rabaa midaas ugu. Wuxuuna dhahayaa in gabar ma arko. Isna wuxuu dhahayaa shub ayuu ka ahaanaya. Wuxuuna dhahayaa jacayl ayaa ku galay. Waxay cadeynaysaa aamusnaantaada midaas. Wuxuuna ka fikirayaa taas. Subaxii xige waxayna Athora u sheegaysaa inay wax u hayso ayna rabto inay u keento. Waxay dhahaysaa waa baxay busy ayaa iyagana waxay dhahayaan maqaaxi ayaa isku raacayna. Dhan kale waxaa arkaynaa Athora oo shir ku jiro. Markuu shirka soo baxo waxaa arkaynaa in loo sheegay inay imaatay gabadhii ekistiisa ahayd oo banaanka ay gaardiyaasha ay celinayaan. Dhan kale wuxuu usoo cararay Tirishada. Wuxuuna dhahayaa waxayna siinaysaa bahash u keentay. Wuxuuna dhahayaa ha imaan ilaa aad ii soo sheegtid meeshaan. Wuxuuna ka xirinayaa kaamirada ay u keentay guriga albaabkiisa. Waxayna ku dhahaysaa ka waran bal haddii ogaato gabadha qaraabada tihiin maxay ku samayn kartaa. Arrinkaas ayuu ka fikirayaa Athora. Kabacdi wuxuuna la soo hadlayaa Tirishada. Wuxuuna weydiinayaa goorta imtixaan galooyin. Wuxuuna dhahaa imtixaanka markuu ku dhamaado tigidh ayaa ku jira ku aadayso waalidiintaada. Waxaana la gaarayaa maalinkii koowaad ee imtixaanka. Waxayna isku raacayaan imtixaanka markuu dhamaado inay isku raacaan kalaab ayna soo baashaalaan. Waxaana way ka xanaaqday saaxiibkeedii gabartaaneti Tirishada saaxiibteeda. Wuu raaligelinayaa. Waxayna aadaysaa banaanka si ay ula soo baashaasho. Waxaa arkaynaa habeenkii ugu dambeysay ee imtixaanka uga dhamaaday. Waxayna kalaab ku sheekaysanaysaa asxaabteeda. Waxayna iska badinaysaa cabitaanka Tirishada. Waxaana la soo Athora. Wuxuuna dhahaa beri safar ayaa tahay waa inaad dharkaaga aad diyaarsataa. Isna wuxuu bilaabayaa Janmin inuu u helo Tirishada. Waxayna kasoo baxaysaa maadaama ay cabtay. Athorana wuu la hadlaa. Wuxuuna ogaanaya inay kalaab joogtay cabitaan ay cabtay. Asxaabteeda ayay soo maxsalaameynaysaa. Waxayna dhahaysaa walaalkii ayaa banaanka ii joogo iyo soo soco. Janminna banaanka ayuu usoo raacayaa. Markaas kabacdi wuxuu kusoo wareejinayaa Athora Tirishada. Kabacdi way ku matagaysaa maadaama ay cabitaanka iska badis. Waxayna dhahaysaa lalaba ayaa ay hayso. Waxayna u sheegaysaa inay weli jeclaatay. Athorana wuxuu weydiinayaa isagana si xun ku laqma. Waxay dhahaysaa maya dadka dhan ayuuna u wanaagsan yahay. Waxaa ogaanaynaa Athora inuu midaas ka xumaan. Wuxuu dhahaa haddii ani ahaan lahaa hal waqti kaama murjiyeen. Hadda nolosheeda okay ayay naqdeen waa iska gool. Laakiin carqalada kaliya ay haysto waa inaa adi hadda kaa weynahay. Waxaan halkaas fahmay in Athora Tirishada aad uga helay. Wuxuuna soo hadlaya. Wuxuuna dhahaa waa inaa isdiyaarsataa madaarka kuu geeyo asxaabteeda iyo wuxuu ugu sheegaysaa wixii xalay ee dhacay.
and then way soo diyaarinaysa waxay intaaysa banaanka. Thor ayaa banaanka u taagnaa boorsada ayuu ka qaaday. Jasmine ayaa u imaanaya wuxuuna bilaabay inuu jeelkiisu sheegto laakiin aad ay ka raaligelinaysaa midaas. Wuxuuna ka codsanayaa inay saaxiibo sii ahaadaan wayna ka aqbalaysaa. Waxayna isku soo raacayaan Thor iyo Trisha dhanka iyo madaarka. Wuxuuna weydiinaya wiilka ay jeclaatay inuu Jasmine la socdo part 5. Bye bye.